بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. waxaan ku dhex jirnay oo aan hadda ka soo baxnay taraawiixdii cadada rakacaad iyo sida ay qiraa'ada noqonayso. waxaan ku sii dari lahaa qur-aanka qiraa'aadkiisa oo wax mashruuc ah oo mutawaatir ah. wayna fiican tahay inaysan qiraa'aadka dhumin, laakiin nin kasta ahlu ma aha. yani markii 7 quraa oo mid kastaba uu raawiyaan leeyahay oo midkiiba laga yaabo akthar min riwaaya asiga uu ka warinayo, way isku dhexyaacaysaa. marka dad yar oo mawaahib leh oo mutakhasisiin ah oo haddana u fadhiisato liliqraa dadka inay wax ay baraan qiraa'aadka gacan ku hayn weeyaan. walidaalika laba shayba waa laga yaabaa inay kugu keento markii qofka qiraa'aadkii oo dhan uu mutqin ousan ahayn inay iskaga dhex yaacaan. wallahu bima tacmaluuna bima yaclamuuna baadiya ara'yi bimalkina bimulkina wax badan baa iskaga dhex yaacaya. marka tan ku soo celi, tan inta qaad, inta keeli, saas dadkiina tashiishaad ku ridaysaa. marka waxaa qiraa'aadka akhri kara dad mutqiniina oo mutakhasisiina waqti dheerna siiyey tamxiisna xataa saarat malaka cindahu. waa mid weeyaan. midda kale waxaa badan qiraa'aadka khushuuca way tagsiisaa. qofka markuu intaasoo riwaayad uu xifdisan yahay ou raba inuu ka dhex bixiyo mid uu akhriyo badana u fiirso. waxaa weeyaan markuu ugu yaryahay waxaweye beytkii shaatibiyada ayaa maskaxda uu soo geshanaya sidii uu qiraa'ada uu kala saaro, liannahu waxaa weeyaan wixii si kale lagu kala ma saari karo. marka qofkii ma xifdigii aayaddii buu iska ilaaliyaa, mashaatibii buu fiiriyaa. marka goormaa macaanidii ay qur-aankii aad dhegaysanaysaa. marka dadka waxaa u maslaxa fiican badana hal riwaayo ama raawiyeyn oo liqaari'in waaxid hadduu u akhriyo inay waxaan u arkaa kaafi jamaahiirtoo dhan. dadka kale waxaa weeyaan dad yar oo fara ku tiris oo ummadda u fadhiisato oo ninkii doonaya arrintaas ka xaqibtirta mooye waxay iska noqota hadirtaan wax oo ah maftuux calaa misraaci. nin baliid ay, nin mutawasit ay, nin daki aba intay wada dhex galaan oo ninkiiba u arkaba dadkan waxaysan aqooninba inuu maqashiyo, yani xoogaa waxay noqonaysaa arrin oo dhibkeeda leh oo laga yaaba inay qofka ku keenta istustus iyo riyaa. qur-aan iyo qiraa'ad buu yaqaanaa, inay dadka tashwiish ay ku keento in maxaan ku irahdaa asiga naftigiisa qiraa'adka itqaan uu ka sameeyo isku dhex yaaciyo. marka taas aan ka nimaado waxaanu imaanaynaa ducaau lqunuut wamaa adraak. dabcan taraawiixda waxaa lagu khatimaa witr oo 3 ragca ugu dambeysa, midka ugu dambeyso waa lagu duceeyaa. asalkeedana way soo aroortay oo xadiidkii xasan bni caliyin calamanii rasuul اllahi sal اllahu alيه wasalam kalimaatin aquuluhuna fii qunuuti اlwitri. nebiga wuxuu i baray buu iri kalimaad aan iraahdo markii aan witrka qunuudkiisa joogo. markaasuu iri kalimaadka allahuma hdinii fi man hadayta wacaafinii fi man cafayta ilى aakhirih. marka qunuudka soo arooray kaa weeyaan. qofka hadduu asiga intuu akhriyo ou ku akaysto wax ka maqan haba yaraato ilaahay abuuray ma jirto. jaaءa biاlmashruuc calى اlwajhi اlmaطluub muqtadiyan bima calamanaa bihi rasuulu اllahi sal اllahu alيه wasalam. maa fi ay mushkila. masalada waxaa weeyaan wax kale ma lagu dari karaa, laakiin ninkaas in la ceebayo la yiraahdo waxbaad ma aadan akhrinin, wax yaraad akhrisay ma aha. nebiga intuu noo doonay sideedana ducada badigeeda lagama fiiriye jawaamic inay ahaato kelimo yaroo alfaad kooban ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray oo macaani badan tusinayso. ninka hadduu yidhah rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaaba naar, wax ka haray maba jirto. nebiga ducadii ugu badnaa uu ku ducaysan jiray bay ahayd. marka maanta laakiin waxaa weeyaan dadkii cala alcagsi. marka waxaa horta bilaabatay ducadii oo la dheereeyo xataa ilaa daraja waxaad arkaysaa masaajidaha qaarkeed markii taraawiixda dhan laysku soo celceliyo intay waqti qaadatay
marka qaarkeed wax u dhigma ama ku dhowayaaba ayaa duca la akhrinayaa. marka masaladii waxaa weyaan waxayba noqotay almaqsuud huwa ducaa walaysat alqiraa'a. waxa weya waa taa wax sax ma aha, wax mashruucna ma aha in ducadii laga dhigo hadaf qur'aankii iyo qiraa'adiiba dhan la tuuro. wax wanaagsan arrintaas ma aha. waa midda koobaad. midda labaad waxaa caado laga dhigtay albukaau fi lqunuut. waxay dadka ka dhaadhicinayaan alfaad asiga uu soo qortay ama aimada kale oo dee meelaha ku duceysa laga soo xifdiyey asigoona waxbaana aqoonin yuu soo diyaarsaday. marka waa sii diyaar garoobayaa maanta dhan ayaga yuu ku oynaya qur-aankii caawo dhan ou soo akrinay waxba kamaba dareemiba. baynamaa ilaahay uu yihi allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mathaniya taqshaciru minhu juluud aladiina yakhshawna rabbahum ثuma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikri اllahi dalika huda allahi yahdii bihi man yashaa. yacni qur-aankii aa lagu yaqaanay qofka inuu qalbigiisa jilciyo, inuu ay ku dhaliso macnaha jirkiisa dhan inuu dhaqaaqo, inaa dadki caado looga dhigo alfaada ninkan uu soo samaysta keli ah in lagu ooyo. waxa weeyaan waa qardajeex. kalaamkii ilaahay yousan ku saamaynin. qof bani aadan wuxuu isku soo tootoosiyeen waxawaaye waa ku oynayaa. arrintaas waxay u baahan tahay icaadati nadar. wax saxna ma ah. waxaa dheeraad ah rafcu sawti fiih. ducadii markii qofkii uu akhrinayo wuxuu leeyahay intaan ku khushuucay baan oy baa markaasuu kor u qaaday yaa allah yaa allah. sidaa sax ma ah. ducada asalkeeda waxaa waye sawt khaafid ah in lagu akhriyo yaa asal ah. udcuu rabbakum tadarucan wa khufyatan inahu laa yuxibu lmuctadiin. ilaahay barya si oo tadaruca lagala jeedo tadallul, inaad isu dullaysid, hadalkiina hoos aad u dhigtid oo adiga ismaqashid aad kaligaa tahay. haddii kalena microfon baad wax ku akhrinaysaa, codka yaraad ku akhrinay ummadda dhan way ku maqlaysaa. alictidaa inahu laa yuxibu lmuctadiin waxaa lagu magacaabay waxaan mashruuc ahayn ilaahay ka baridid ama tafaasiil mumila oon jirin oo maanta dhan lakala bexbixiyo aad geshid ama codkii aad kor u qaadid. nebiga markuu saxaabada la hadlay wuxuu ri ilaahay dhagalla ama baryaysiine naftiina u dhimriya hoos ilaahay u barya buu ri nabiga calayh salaam arbicuu calaa anfusikum fainakum laa tadcuuna ilaahan asam. marka waxaa la rabaa ducadii in la yidhaha rabbanaa aatinaa fi اdunya xasana wa fi اlaakhira xasana. saa tartiibka inaa u akhrisid oo adigoo tadalul iyo iftiqaar iyo muujinayo inaad ilaahay barisidaa la doonaa. wadkur rabaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan wa duuna aljahri min alqowli bilgudi wاlaasaali walaa takun min algaafiliin. tadarucan wakhiifa fiir labadaas rukni waa muhim jiddan. waa waxa cawiilka oo qaylida iyo oohinta ah oo sax ma ah, laga haboon yahay. waa qofkii waa inuu uusan sida maxaan ku iraahdaa naftiisa ay doonaysa inuusan samaynine sida ay haboon tahay in ay nabiga calayh salaatu salaam iyo sida sharciga uu waafaqsan yahay inuu isku qasbaa la doonaya. waxaa lamid oo caado laga dhigay tajwiid adducaa mithl اlqur'aan. in ducadii la tajwiidiyo, sajci loo fiiriyo, macnaha iqaacaad loo sameeyo meel ay ku wada dhammaato isku mid ah. in axkaamteedii muduud iyo gunna iyo ikhfa iyo sidii qur'aankii loo sameeyo. waxaa weeyaan waa qur'aankii ilaahay baad aad kalaamkaadii aad rabtaa inaad uu ka mid noqdo. hadda fiiri maalan qofka hadduu yidhah allaahumma aati nufuusanaa taqwaaha wazakihaa anta khayru man zakaaha. haddii saas wax u akhriyo aayaddii qur'aanka qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha. maxaa u dhexayso? ninkii caamihe laba qur'aanay u tahay ba iyaga dhan. saas ma ah.
laakiin allahuma aati nufuusanaa taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha inaa saa u akhrisid qur-aankii ilaahay aadan ku darin oo wixii aadan isku tashbihin tamaaba nebiga xadiidkiisi waaba laakiin maa yaliiq xataa kalaamka nebiga ina kalaamka ilaahay sida loo akhrina loo akhriya ma ah. walidaalika ibnu cabaas baa waxaa ka sugnaaday inuu yihi wandur istajca min adducaa fاjtanibhu fainii cahidtu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam wa asxaabahu laa yafcaluuna ila dalika اlijtinaab buuri. riwaayadaas ibnu cabaas saxiixeynkii ku sugan tahay in lam takhuni daakirati. wuxuu iri sajciga ducada meel kuwada dhammaato oo maxaan ku yidhaahdaa oo laysku ekaysiiyo sajciga saas waay ka fogow buuri liannahu nebiga asxaabtiisa inay ka fogaanayaan un baan ku ogaaday arrintaas ayada ah. marka ducadii dariiqada lagu akhrinayo waa in waxweyn laga bedelaa. walidaalika ninka munaawi la yihahdo fii fayd اlqadiir yaa wuxuu iri in ducadii sawdkeeda la tajwiidiyo sida qur-aankii oo kale waxa weeyaan dadka aan macnaha ducada fahmaynin baa sidaas wax u sameeya buuri. mithaalaan wuxuu soo qaatay nin makhluuqi haddii maanta aada wax ka baryaysid adigoo qof bani aadam ah ninkaa sareeyo madaxaad wax ka baryay ayuha almaliku inii atlubu minka an tucطiyanii maa argabu minka. haddaad saas tiraa ka war ninka waabu ku edbinaabo sidaasuu usoo suuray ninka munaawil yirahdo wuxuu ri ninkaa ta'diibuba mutaystaaba waana daliil cala alkhayba walkhasaara buuri. ilaahay baad hortaagan tahay inaad isjilcisid hadalkaada hoos u dhigtid biadab واxtiraam ilaahay aad ula hadaysid jala jalaaluhu. id naadaa rabahu nidaءa khafiya qaala rabi inii wahana alcadmu minii washtacala الra'su shayba walam akun biducaa'ika rabi shaqiya. ambiyada fiirsa ilaahay u baryaya nabiyullaahi zakariya suu ilaahay u baryaya fiiri yani waxaa la yidhaha adducaa bilxaal ilaah waad ujeedaa sidaan ahay madaxii baa ayaa iga cinroobay sanadkii baa ila weynaad lafeyki waa daciifeen adducaa bilxaal baa la yihahda ilaahay wuu kaa ogyahay wuxuu ilaahay ogaay baad haddana aad ilaahay subxaanahu watacaala ku baryaysaa. marka waxaa la rabaa inaad isdullaysid mooye ninba tajwiid akhrinayo oo maqaadic iyo muduud saxaya goormuu wax baryaya. waxa weeyaan runtii waa waxyaalaha ay habboon tahay in laga fiirsado yay habboon tahay. ayib waxaan nimiday tobankii dambaa nimiday maalan tobankii dambe markaan nimiday laba taraawiix meel laga wari ma jirto. ani hadda waa xaaraam iyo waa xalaal ma ka dhahay laakiin waxaan kasoo wixii soo arooray dadka taraawiix la jamciyo nebiga qaar maalmay lala dukaday asoon ka warqabin waana joojiyey asoo in lagu farad yeela ka cabsanay. laakiin maxaan ku idhaahdaa cumar bn khadaab baa arkay iyagoo kala dukanaya wuu aruuriyey markaasuu wuxuu iri salaada waqtigan aad dukanaysiin waxaa ka fiican minda aakhirka aad ka hurdaysiin. taa waxau noogu ishaaray mar haddii taraawiixba la dukanaya ee qiyaamu leyl waqtiga danbuu ku fiican yahay. marka waxaan idhaahdaa aniga haddii ay dhici karto dad meel wada degan oo isku mabda ah oo maxaan ku idhaahdaa wax kala maqlay hadday ku tashtaan ramadaanka markuu yimaado cishaa intay dukadaan ay kala tagaan waqti dambe ay ballamaan oo habeenkii thuluthu leyl akhiir ah hadday ku wada waafaqaan sidaas oo cid ka maqnaanaysa ama cid khilaafaysa ay jirin in taraawiixdoo dhan dib loo dhigaa fiican oo waqtigaas lagu dukado liannahu qiyaamu leylkii iyo saxarkii oo isku aado ayay noqonaysaa. haddii la waayo waa sida hadda loo badan yahay dadka dad shaqaalo ah baa ku jira dad waxaa ku jira oo aan soo kici karin dad waxaa ku jira marka waxay ku leeyihiin waqtigaas iskuma hubnee taraawiixda noo soo hormaray dhib ma laha. taraawiixda waa lasoo hormarinayaa waqtigeedaasaa la dukanaya suuragal ka tahay hadhow wixii ka dambeeya qofkii furaada wixiisa hadduu rabo ha ku darsado laakiin laba taraawiix in la yidhaha waa laga wanaagsan yahay. xataa laga maarmi waayo 20 horo in awalka laga dukado bacda alcishaa
markii dee tahajudkii dambe la gaaro dadka badanaa waqtigaashaas oo 10 maalmood ah waa 10 aad u qiimo badan oo aan ka sheekay doono insha allahu tacaala in ayna ku dhib ahayn inay waqtigaas ay taraawiixda wada dukadaan oo yiraahdaan waqtigaas noogu aadi qur'aankii iyo qiyaamkii iyo ducadii aan isku helno waqti saxar wax fiican weeyaan tashmiir bay cibaadada u baahan tahay laakiin dadkan wax kasta waa la bari karaa laakiin qudway u baahan yihiin hadday maanta bartaan inay ogaadaan iyo faa'iidada ay leeyihiin maalinka dambe waxa weeyaan maxaan ku iraadaa way wada ogolaan lahaayeen laakiin dadkii caamada ahay baa waxay yihiin inay dadkii kala xukumayaan waxaan ma rabno saan ma yeeli karno ninkii طaalibul cilmiga ahay oo la rabay inuu dadka cilmiga tadriijiyan tadbiiqiyan u geliyo yaa wuxuu ku leeyahay khawfan min alkhilaaf baan ka cararaynaayo waxay rabaanaan u samaynin axyaan xataa yakuun mukhaalifa lima warad sidaas ma aha yani marna in layska ilaaliyo fawdada masaajidaha in laga dhaliyo way fiican tahay haddana in sidaa lagu aamuso wax meesha la jooga aan hori loo sii soconinna wax fiican ma ah ayadoon khilaafka la ilaalinaya waxaa la rabaa dadka in tartiib diinti loo baro la gaarsiiyo meesha kamaalka oo dhammaystirka in la gaarsiiya loo baahan yahay ayib marka sidaasaa habboon haddii la arko inay qole samaynayaan dad kale way ku soo darsamayaan ama masaajid isku dhow oo kale masjidna awala leyla dadka uu ka dushiyo qolana isku waafaqata aakhir leyl inay dushiyaan ninkii oo annagana imaan karana habeenkii hanala ballamo ninkii kalena qoladan hala dukado oo cid ceebaysan ayna jirin oo adinkaa fiican annagaa fiican aana la dhihin aad bay u fiican tahay ayib waxaa muhiim ah taraawiix waxaa loogu magacaaba leeyahay bimacnaalistiraaxa waay haddiiba qur'aan la akhrinayo 2 ragca haddii ay dhammaato in ay dadka wax yar loo nasiyaaho ceeb ma ah oo maalan dadka biyay soo qaadanayaan dad iska hadda maanta waxaa weeyaan dadka cuduryaalkooda waa badan yahay dad badanaa waxaa weeyaan sokor qabo dada dhiikar qabo dada maxaan ku yidhaahdaa qurxa macidiya qabo marka daawooyin ay wataan waxyaala lagu qaboojiyay wataan cibaadadiina way rabaano maadaama cuduryaashiiba ay badaba joogtaba inay wax lasii qaataan bay doonayaan marka 2 ragca markii laga baxa 5 daqiiqa haddaa u sugtay biyahooda cabaan oy waxooda samaystaan ninkii xataa aan ka gaari karin inuu asigaas biyo doonto oo kale ninkan saaxiibkiisa uu kala cabo oo ay leedahay ma jirto dad baa waxay sameeyaan waqtigaas adkaar oo laysla qaadayo sax ma ah haddii uu imaamka uu fatra dadka siiya adiga ilaahay waad bari kartaa laa yazaalu lisaanuka radban bidikri illaahi marka fatradaas yaroo la aamuso haddaad iska nasatid waad leedahay adkaar adiga kuu khaas aheed in iska akhrisatid oo aan wax go-an oo lawada yaqaan aan ahayn ama qur-aankii dhex kuu joogaad hore kasii dhammaysatid maa fi ay mushkila laakiin adkaar la isla qaadayo iyo qaacaad le oo keyta leh waxaa weeyaan wax soo arooray oo hadda mashruuca ma ah ayib waxaa muhiim ah oo loo baahan yahay salaada in isku dheeli tiran tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kamaa habata fi alaxaadiis saxiixa qiyaamkiisa iyo rukuuca iyo sujuudda waxaa naxwan min bacdiha waa isku dhowaayeen marka hadduu qiyaamka dheeraado waxaa la rabaa rukuucane inuu xoogaa dheer yahay sida machuudka ka bedelan yahay laguma dhahayo rukuuca an yakuuna mithla alqiyaam ma aha laakiin rukuuci waa inuu la jaan qaadaa qiraa'adaadii intay la ekeed wax oo macnaha u dhigmi karo inay noqotaa inay rakacdi dheer tahay rukuucina subxaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar yani isma keenayso tumaaniinay u baahan tahay oo dadkiina ilaahay ku baryaan rukuuca sujuudda meesha ilaahay lagu baryo maqaamka ugu wanaagsan waay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri marka adoonki ilaahay wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay liannahu waxaa weeyaan adoonkii gaayata dulli buu sameeyey naftiisa meesha ugu dambeeyey wejigiisa oo kii ugu karaamo badnaay buu ilaahay dartiis dhulka u dhigay macnaha waxaa weeyaan inaad ilaahay isku duleysay ood isu dhiibtay marka raxmad bay soo dedejinaysa arrintaas ayada ah ka faa'iidaysa markaa ayagana dadkii in la baro ducada ilaahay ka baryaan oo aan qur-aan lagu akhrinayn markaad rukuucsan tahay
iyo markaad sujuudsan tahay qur-aan laguma ducaysto. aayaad qur-aanaa jirto oo duca ah xataa in laga fogaada fiican. rabbanaa aatinaa fi dunya xasana waa duca waana qur-aan in layska wareejiyaa wanaagsan. liannahu nabigu wuxuu uri nuhiitu an aqra'a alqur'aana waana raakicun aw saajid, waxaa layga reebay aniga oo sujuudsan ama rukuucsan inaan qur'aan akhriyo. marka adigoo nebiga amarkiisa qaadanaysid ducooyinkaa kale ilaahay ku bari subxaanahu wa tacaala. marka salaadaadii ha noqoto daa'iman caynuka calaa sunnati nabiy sal allahu alayh wasalam, dariiqadaaseed ku raacdaa. haddaad rabtid guul oo dhan inaad gaartid nebi maxamed ku dayo, ilaahayna intaa yaroo lagaa aqbalo oo dariiqati rasuul lagaaga aqbalo yaa ka khayr badan in iska qarda jeextid oo waxaan meel laga keenay aan la aqoonin oo birina wejiga lagaaga dhufa karo inaad la timaadid. waxaa kaa wanaagsan wax la huba inaad samaysatid. sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin.